kusoo laabtay markaan wadaan kusoo laabtaba reerkii wada dhiigbaxayo wax istaantii ay nafta la laqays wiil anigu aan dhalayn oo sidoo kale reerkii oo dhan uu tabti wada dhiigbaxayaan nimid ka soo gabadhii aan soo qabtay xaaskeed anoo gacanta ku ay ugu dulmeeyday wiilkii roonaabaan soo qabtay anoo gacanta ku ay ugu dulmeeyday kuwii kale dhaawicii adeeso tabtaas ugu dhacay caruurtii dhamaan haddana waxa ay ugu dhacday caruurtii in macna waxa wixii kale oo dhaawac ahayn aan dhaawici meel aan la galaan waay magaaladiina way iga xirantay korna meel aan ula cararmay dadkii dhiigbax inuu baaba u noqday haddana yaab halis noqotay marka amiga ka bacdi aan qayl bismillaahir rahmaanir rahiim walaalo adinko aad u mahadsan adigu waxa way maxamed gaarana dhuugow ah masiibadii daraad kulay baar dheer ka dhacday masiibo garan baan dhihi karnaa masiibo dhacday baan dhihi karnaa reerkii hadee qaraxba ku faris islaanti oo waxa uu xaamilo ah oo 9 bilood ah waa dhimatay marka wiilkii reerku u weynay meeshuu iga dhintay meeshaas nin kale oo martino oo meesha noogu yimid meeshuu ku dhintay reerkii oo 3 ah nin martino ahaa 5 ruux oo hadda isbitaalkan taalo kolley madfac baa ku fariistay reerkii sidaas aan ugu dhacday alxamdulillaah kolley ilaahay baa mahad iskale kolley Alle subhanahu qaadir ka in baa wax ka sugaynaa Alle subhanahu qaadir ka in baa tala saaranayna walaalo haddii aan ku sharaxo siday wax u dhaceen annagoo reerkii subaxnimo ay joogto marka ayadaan soo kacnay iyo madaafiic nagu bilaabatay reer iga soo horjoodo dariskayga oo lagayga ah iyo madfacyo ku dhaceen reer iga soo horjoodo oo madfac uu ku dhacay ayaan aaday oo dhig tag reerkaan lagu yaacay maxaa ka jiro reerkii albaabkiisa markaan taaganahay reerkaygii bay qabsatay halka baan ku soo laabtay markaan wadaan ku soo laabtaba reerkii wada dhiigbaxayo wax istaantii ay nafta la laqays wiil anigu aan dhalayn oo sidoo kale reerkii oo dhan uu tabti wada dhiigbaxayaan nimid ka soo gabadhii aan soo qabtay xaaskeed anoo gacanta ku ay ugu dulmeeyday wiilkii roonaabaan soo qabtay anoo gacanta ku ay ugu dulmeeyday kuwii kale dhaawicii adeeso tabtaas ugu dhacay caruurtii dhamaan haddana waxa ay ugu dhacday caruurtii in macna waxa wixii kale oo dhaawac ahayn aan dhaawici meel aan la galaan waay magaaladiina way iga xirantay korna meel aan ula cararmay dadkii dhiigbax inuu baaba u noqday haddana yaab halis noqotay marka amiga ka bacdi aan qaylinay gaariyaan baa lagu soo dadka isaga ilaa hadda waxa way xataa diyaaradii ama jasi arin xataa hadda gargaar oo hadda lagu la cararna xataa ilaa hadda uma hel ninkaas xaalkiisa walaalow ma sahlano xaaladiisa meel xun bay maraysaa ma sahlano ninkaas waa qof saaki macnaa waxa way inuu meeyday inuu nool yahay kaliya indha kaliya ka kala garanayso wax kale oo laga dareemayaa jirin dadkaan in meeshan waxba qal looga qaban karin oo meel kale loo qaaday ayay noo sheegeen dhaqaatiirtaan الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي بمهاد اسكاله سبحانه وتعالى إنا لله وإنا إليه راجعون وحاوي غفل بو دمان مصيبة قرن با كدعday deegaankan degmada baar dheere khaasatan annaga subaxyaha kamid ah oo laga joogo 2 maalmood yaa waxa bilowday qarax magaalada ka dhacay hadduu magaalada qarax ka dhacay wax yar dabadeed waxa nagu soo bilowday hoobiyihii isaga ahaa yaa wuxuu ku dhacay ilaa iyo dhowr guri dhowrka guriga hadda dadkan uu ku baaba'ay waxay ku joogeen dad 8 qof ah 8 qof waxay kala ahaayeen nin caruurtiis oo ah 7 qof islaantii uurka lahayd oo 9 bilood joogtay oo dhimatay wiil ay dhashay oo 12 sano jiro nin marti uu ahaa oo macallin dugsi ahaa oo halka ku geeriyooday dadka saddexda way dhinteen 5 qof oo kalena waa dhaawac 4 qof waa dadka hadda aad aragtaan oo indhihiina ay hayaan halkaan fadhida nin kalena wuxuu yaalaa isbitaal kale oo la yiraahdo Gada General la yiraahdo ninkaasu maskaxdiisa way socotaa oo madaxa duleelo marka dadkaas waxaan u qaadaynaa haddii ilaahay idma hadda magaalada Muqdisho tigidkooda wuu go'an yahay waxaan leenahay haddii ilaahay baa keenay waa qadar rabbi weeye waana ku qanacsanahay dadkaas waxaan rabaa cid kasta oo Soomaali ah oo wax u qaban karta dadkaasi inay wax u qabato waxaan leeyahay anu hadda ma lihi dawlad ku meel gaar ah wax qabanaysa ma qabo waa fikirkayga koobaad oo wax dawladeed maba sheegi karno waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah dadkaas inay wax u qabtaan oo ay arkaan dhibaatada gaartay qoyskaasu
inaan arrintaas aad ka dhiidhisaan soomaaliyay sidaas ayaan dhihi lahayn aad baad u mahadsantihiin waa bilaahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal jazaakumullahu khayran dee waxaan dhacay waa arkaysiin waxa ilaahay qadartiisa oo allah xaggiis ka imaaday waaye dhibka dhacayna dee waad u joodiin dadkaas muslimiinta ah oo masaakiinta oo baaba'ay oo hooyada ay dhimatay wiilka u roona uu dhintay dee waxa meesha yaalan aad u joodiin oo dadka kale way dhimatay wiil ay dhashay waa dhintay wiil nin kale oo walaalo ah oo markaas u yimi marti ahaa waa dhintay dadka kalena waad arkaysiin ilaa 5 ruux waaya oo moogtaa 4 hadda aad arkaysiin iyo nin kale oo isbitaalka kala yaalo dadkana saas weeye intaasna tawarrac iyo orod baa lagu jiray wax hada gargaar eena lama helin oo wixii tasiiladka oo farmashayaasha ay isbitaalada yaryarka ay qabteen ma ahana wax kale looma helin hadda gurmadka ugu badan oo rabno waxa waaye inaan xamar aadino oo ilaahay aan la tala saarano arintaas waxaan rabnaa walaalayaalow dadka muslimiinta meel kastoo ku nool yihiin dal iyo dibad wixii jooga waxaan rabnaa inaan ma ogtahay gargaar degdeg ah ilaahay baa gargaar leh dadkaas la soo gaaro intaas aan rabnaa wassalaamu calaykum bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ah medical director-ka isbitaalka Gadajir Hospital waxaan halkan ka sheegaynaa in uu jiro bukaan magaciisa la yiraahdo Xirsi Cabdi Maax oo aad iyo aad u xanuunsan oo maalinkii dib ku dhacay ilaa haatan isbitaalka Jiifa wali xaaladiis marba uu soo reysanayo haddana uu u baahan yahay in loo qaado halka ay xamar iyadoo culays ugu badan uu ka jiro halka ay madaxa lafta oo jabtay oo guduhu dhig ugu daatay oo aan qalin u sameynay meeshaas iyo meelo kale fara badan ninkaas oo aan dalbanay in sida ugu dhaqsiyaha badan xamar loogu qaado waxaan ka codsanaynaa qof kasta oo muslim ah oo walaal ah oo ninkaas caawin kara inuu si degdeg ah xamar loogu qaado looguna fidiyo adeeg caafimaad oo ku filan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhibkaas wuu dhacay horaan naga soo hadlay anoo hadda doctorka garab taagan dadku way badan yihiin dadka hadda aan ka soo tagnay oo 5 dhaawac ahayd 3 geerida ah ninkaas waa 7 qof weeye dadka dhimashana waa 3 5 waa dhaawac weeye dadkaas waa 8 weeye ilaahay baan u baryaynaa in ilaahay ka dulqaado dhibka hayo inta dhimatayna ilaahay u naxariisto waxaan leenahay muslimiinta meel kasta oo joogto ha loo gurmado dadkan ha isgarab istaaga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh